assalaamu calaykum daawade ku soo dhawow sheekada maanta. Laba dal ayaa dagaal ka dhex qarxay, dagaalkaasi oo ilaa maalmihii la soo dhaafay oo dhan socday. Askar badan ayaa ka dhimatay labada dhanba, xuduudiina waxa ay noqotay goob dhimasho, raq iyo burbur badani ka muuqdo. Habeen kasta ciidamadu fadhiisimadooda ayay ku laabanayeen iyagoo qaar dhaawac yihiin, qaar dhaarsan yihiin oo ay rabaan inay cadowga ka aarsadaan, halka qaarna ay dhinteen oo aanay dib u soo laaban doonin. habeenada ka mid ah ayaa askari dhaawacan oo jahawareersani ku soo baxay guri yar oo cooshada ah. xanuunka hayay iyo jahawareerka ku dhacay awgeed kama uu istaagin ee albaabkii ayuu garaacay, waxaana ka furtay islaan da'ah. islaantii iyadoo aan wax su'aal ah weydiinin, wax cabsi ahna aan dareensiinin ayay ku tidhi, soo soco oo gudaha soo gal. cod daciif ah ayuu ku yidhi, xabbad ayaa garabkaygaga jirta ee waxaan u baahanahay caawimo. waxay ugu jawaabtay, hooyo, keligay baan nahay, wiilkaygu isna ciidanka ayuu ku jiraa oo ma joogo, laakiin waan ku caawinayaa intaan karo. waxay ku tidhi, kaalay halkan dabka u dhow jiifso si aad u diirsato. kadibna shaah kulul iyo xoogaa rooti ah ayay u keentay oo ku tidhi, horta hoo intan cun. askarigii shaahii ayuu ka baday isagoo hareeraha eegaya, wuxuu islahaa malaha waxaad ku jirtaa gacmihii cadowga. haddii uu islaanta weyddiiyo, waxa uu ka cabsaday in haddii ay ogaato ay dili doonto ama ay sumayn doonto. sidoo kale dhiig badan ayaa ka baxay oo caawimo ayuu u baahnaa. xoogaa yar kadib albaabka ayaa la soo garaacay. waxaa soo galay askari kale oo da'yar. maama, hooyadii ayuu u yeedhay. hooyo, maalmo badan ayaan kaa maqnaa, waa alla mahaddii haddii aan nabad kugu soo laabto. intaasi markii uu yidhi ayuu arkay nin jiifa meel u muuqata. waxauna weyddiiyey, hooyo, waayo ninkaas? waxay ku tidhi, aamus, ha kicinine. mar dhoweyd ayuu gamayay. wiilkii waxa uu ku qayliyey, hooyo, waa cadowgeenna, khatar ayaad ina gelisay markaad u oggolaatay inuu gudaha soo galo. hooyadii ayaa ugu jawaabtay, maya hooyo, ee si xun ayuu u dhaawacan yahay. cadow ha ahaado ama yaanu ahaane, waa inaad caawisaa. wiilkii ereyo kulkulul ayuu sii watay, laakiin waa ay ka diidday. askarigii ayaa ku baraarugay hadalladii wiilka iyo hooyada. waa ay u tegeen waxayna ku tidhi, wiilkaygii waa uu yimid, waxaan u malaynayaa inaannu iminka ku caawin karno. kadib xabbaddii ayay ka soo saareen, nabarkiina dhaymo ayay mariyeen, isla markaasina way dabooleen. waxayna ku tidhi, intaas baa awooddeenna ahayd, wixii intaa ka dambeeya waa inaad dhakhtar u tagtaa. askarigii ayaa ugu jawaabay, haye waan baxayaa, kadib ayaan dhakhtar raadsan. maya, meelna ma tegaysid hadda, aniga ayaad magan ii tahay, iska seexo, aroorta ayaad bixiya. sidaasi ayay ku tidhi islaantii. aroortii ayay u keentay quraac iyo xoogaa boorashah. askarigii ayaa ku yidhi, weligay si aan kuugu mahad celiyo garan maayo. kadibna waxay ku tidhi, waxaad iigu mahad celin kartaa inaad disho nacaybka ee aanad dilin cadowga. kadib askarigii oo yaaban ayaa yidhi, waan isku dayayaa intii karaankayga ah. askarigii kale ayuu isagoo khajilsan salaamay, kadibna markii uu sii baxayey ayuu ku yidhi, dhammaanteen waxaynu u baahan nahay qof hooyadaa oo kale ah, si uu inoogu sheego in aan dilno nacaybka ee aynaan dilin cadowga. cadowgu isaguba waa uu damqanayaa, qaar ka mid ahayna waxay leeyihiin qalbiyo dahab ah. waxaan kuu ballan qaadayaa in aan isku dayi doono intii karaankayga ah, adigana waxaan kaa rajaynayaa sidoo kale. askarigii waa uu baxay, laakiin maalintaasi waxa uu bartay macnaha walaaltinimada. waxa kale oo uu ogaaday si nacaybka loo dilo in loo baahan yahay hal hub oo keli ah, kaasina uu yahay jacaylka. daawade, sheekadan waxaaad ka fahantay iyo innaga Soomaali ahaan waxa aynu ka qaadan karno noogu reeb kommentiga. mahadsanid.